dadka qaar waxay la yaabaan sababta keenta inay guuldareystaan marar badan ayagoon ogeyn sababta keentay guuldaradaasi. Isku day walba ay sameeyaan waxay kala kulmaan natiijo aynan rabin. Go'aan walba ay qaataan wuxuu ku dhammaadaa fashilmo aan dhammaad lahayn. Haddaba muuqaalkan waxaan ku qaadanaynaa 4 qodob oo kaa saacidi kara inaad ka fogaatid guuldarada. Inta aanan gudagelin muuqaalkan waxaan si sharaf leh kaaga codsanayaa inaad channelka subscribe noo saartid, sidoo kale gambaleelka aad furatid si ay kuu soo gaaraan fiidiyoda aan soo dhigi doono. Kusoo dhawaada daawadayaal muuqaalkeena maanta. Noqo qof ku mintida 100%. Arrintan ayaa ah mid muhiim ah dadka badan markay rabaan in ay guul ka gaaraan shay ama hadaf. Marka ay guuldareystaan ama caqabad ay ka hor timaado, isla markaasna waxay bilaabaan in ay ka niyadjabaan oo aysan ku mintidin hadafkooda. Waana arrin muhiim u ah qofka inuu ku mintido waxa uu rabo inuu guul ka gaaro. Ka fogow inaadan noqon qof aan dabaaldegin. Haddii mar aad gaarto qayb ka mid ah hadafkaaga, samee dabaaldeg oo la wadaag dadka aad jeceshahay si nafsadaada aad u dhiirigeliso inay hore u socoto. Hadafka aad gaartay haba yaraada ama inta oo rabo hala ekaada, farxadda waxay kuu sababaysaa inaad hore u sii dhaqdhaqaaqdo oo dhinaca guusha aad u socoto. Hadafkaaga diiradda saar. Mar walba diiradda ha kuu saarnaada hadafka aad rabtid inaad guul ka gaartid. Isku dhaxwadka hadafyo fara badan waxay kuu sababi karaan inaad guuldareysato. Marka ay imaado hadafyo badan, hadafyadaada kala bixi oo mid walba goonigiisa u tafaxeedo si aad guul ugu gaartid. Si degdeg ah isku dhiibin. Dadka badanaa midda ugu badan ay la kulmaan waa niyadjabka degdega ah. Marnaba ha ka quusan inaad hadafkaaga gaarto. Qoraanshadu marka ay 99 jeer ay ka soo dhacdo meesha ay rabto inay korto, markii 100aad way gaartaa. Marnaba si fudud ha isku dhiibin. Muuqaalkeena halkaas ayuu ka eegyahay. Fadlan haddii aad ka heshay like ka saar, asxaabtaadana la wadaag. Waadna ku mahadsantahay daawashadaada.